muuqaalku waxa uu ku bilaabmaya professor lagu magacaabo Baathiya oo dhigta cilmiga qaybta caafimaadka. Professoradaas ardaydeed aad ay u jecel yihiin. Wiil uu dhalay nin taajir ah ayaa qashqashaaday mid ka mid ah ardayda, isla markii waxaa loogu yeeray hoolka xafiiska. Professorada ayaana sheegtay in kani uusan u qalmin inuu halkan u dhigto. Halkan ninkan uu bilaab inuu ku dhaga hadlo, iyana waxay bilowday inay dharbaxdo oo ay si degdeg ah uga ceerisay fasalkeeda. Professor Baathiya waxaan aragnaa in dadka suuqa joogay xitaa dadka magaalada ay aad u jecel yihiin macallimadani. Gurigeedii markay timaadeen dariskeedii ayaa soo booqday, khaasatan wiil uu dhalay ninka odayga ah. Odayga ayaa wiil ku canaantay in dadka waaweyn uusan ugu dhiibin gacanta bidixda, balse professoradii waxay sheegtay in waxaan ay iska dhacaan uuna wiilkaagii guran yahay. Baathiyana gabadheeda weyn ayay rabtay inay guurayso, ilaa markii dambe ay soo booqdeen qoyska reerka guursanaya. Qoyskaas ayaa waxay bilaabeen inay ku majaajuloodaan caruurteeda maadaama ay u dirtay xerada militariga. Mid waa uu ka dhintay, hal mid oo kaliya ayaa u haray, kaana waxa uu ku maqan yahay jiida dagaalka. Ninka waxa uu sheegay in caruurteedii midna Mareykan jooga midna Ingiriiska uu joogo, uuna shaqaynaya lacag aad u fiican. Laakiin sooyada waxay ku tiri, adigu caruurtaada waxa ugu dirtay si hanti kugu soo shaqeeyaan, anna waxaan u diray si aad adiga nabad ugu seexato. Qoyskuna waxay ogaadeen in reerkan ay ka soo jeedaan qoys geesiyaal ah. Xerada militariga waxaan aragnaa kabtan sare oo lagu magacaabo Ajay. Waqtigaasi isaga ayaa ku qornaa, waxaana markii dambe loogu yeeray in isaga iyo saaxiibkii ay furaan bam. Saaxiibkiisii dadka ugu dhow ee Master Barsad ayaa sidoo kale fahmi waayey sida bamka loo furo. Markaasi Ajay ayaa soo booqday, isagoo aan xitaa isticmaalin dharka ayuu bilaab inuu markiiba iska furo. Waxayna ogaadeen in burcadka miinadaani meesha dhigay uusan halkani ka fogeen. Waa uu soo bacsaday, burcadka ayaana bilaabay inuu meesha ka cararo ilaa markii dambe uu nin shacab ah hub ku qabtay. Kadibna Ajay ciidamada ayaa dhinac walba ka hareeyay ninkii dhibanaha, ayuuna Ajay bilaabay inuu dhafoorka ka toogto. Barsad markuu weydiiyena waxa uu sheegay, fiiri ninkani waxa ku taalay sumadda markuu cararayay. Kiiskaasi markuu soo xirmay, macallimad Baathiya ayaa bilowday inay soo wacdo wiilkeeda kale ee Ajay. Ajay ayayna ugu yeertay in gabadha walaashiisa la guurinayo, uuna la rabo inuu si khasab ah ku yimaado. Halkaasna uu sheegay inuu howlgalka ugu dambeeyay markuu soo dhammaystiro uu guriga dib ugu soo laabanayo, helayo fasax aad u fiican. laakiinse habeennimadii ciidamada militariga waxaa soo gaartay in burcad ay deegaanku u soo dhowaadeen. Labada kabtan ee Ajay ayaa sidoo kale howlgalkani wakiil ka ahaa, ilaa markii dambe ay soo gaareen xarunta dhismaha ay afduubteen qolyahaasi. Waana iskool ay arday yaryar wax ku bartaan, waxayna bilaabeen inay weerar ku qaadaan. kadibna burcadii ayaa hal meel iskugu soo biyo shubatay. hogaamiyaha burcadda ayaa waxa uu ahaa mid ku jeesjeesay ciidamadani Indiga ah. Ajaygii hooyadiisii sugaysay ayaa bilaabay inuu karti muujiyo oo u orday dhinaca burcadda, laakiinse ma uusan ogeyn meesha miino yar ayaa ku xirneed. miinadii ayaana meesha ku qaraxday. Ajayna halkaas ayuu ku dhaawacmay, ciidamadii ayaana si degdeg ah oo la cararay. waxaan aragnaa inuu gacanta ku haysto sawirka qoyskiisa, waxaana amar lagu siiyey kabtanka kale ee Ajay inuusan isna wax khalad ah uusan ku dhaqaaqin. laakiinse qaybta dambe ee dhismaha ayuu ka yimid oo uu hor yimid weliba ninkii booteynayay. markaas isagoo ciidamada ma keenin, waxa uu bilaabay inuu si toos ah uga toogto dhafoorka. sidaas markay dhacday waxaa la soo badbaadiyey ardayda yaryarka ee la qafaashay. Ajayna sawirka qoyskiisii ayaa dhulka uga dhacay, waxaana markiiba la keenay xarunta caafimaadka ee militariga. halkaasi gaashaanli waxa uu sheegay in Ajaygana hadda dhaawacmay, qoyskiisii la guurinayo. waxaa lagu qasban yahay amaba inuu isaga aado ama mid annaga ka mida uu ka qayb galo. tan Ajay ayaa howlgalkaasi loo diray, waxaana la raacsiiyey saaxiibkiisii Barsad. dhinaca kale waxaan aragnaa xukuumadda dowladda, khaasatan nin wasiir ah. ninkan oo ay aad bulshada uga cabsadeen, waxa uu soo kaxaystay macalinkiisa si uu iskaga yareeyo xumaanta. laakiinse isla markii wasiirkii waxaa loo sheegay in magaalada uu mudaharaad ka socdo. ninka magaalada mudaharaadka ka wada ayaana bilaab inuu dad badan uu soo aruursado. markuu meesha yimaadayna macalinkiisa ayuu ku eedeeyey inuusan noqon karin qof wanaagsan.
ciidamo aad u tiro badan ayaa markaasi ninkaasi hareeraha laga soo fariisiyey. wasiirka ayaana bilaab inuu wax walba u sharxo iyo inuu si kasta uu yeeli karo. waxauna bilaab inuu cabsi geliyo, isla markii ninkii mucaaradkaana sidii ayuu amirkiisa ku qaatay oo uu hoos yimid. xalka Ajay saaxiibkiisana ay u socdaan dhinacaayo hoyga ay ku nool yihiin Macallimad Baathiya. tareenka gudihiisa waxaa sidoo kale aragnaa qoys kale oo aad u dhib badan. qoyskani oo ahaa qaraabo iskugu dhow oo mucjiza. odaygu waxa uu rabaa inuu guuriyo gabadhiisa ugu yaara, waana mucjizadii oo cagale, waxaana lagu magacaabaa Smith Karathi. magaceedu yar adag waxaynu isticmaalaynaa magaceeda asalka ah ee Rashmika. rashmika waa gabadha caruurtani ugu yar ayaa odayga aabaheeda waxa uu go'aansaday inuu guuriyo. waxaana hadda loo wada ninka la rabo in gabadhaani lagu daro si markaasi arooska u baajiso. ninkii tareenka dadka tigidhada ka ururinaya ayay markiiba jecel u sheegatay. iyada iyo hooyadeed iyo walaalaheedna waxay isku waafaqeen in hadda arooskani la joojiyo, iyagoo weliba sasabtay ninkaasi. ninkii xeeran ayuu iska dhigay oo uu sadogeysi u yimid, waxauna ka dalbaday in gabadhiisa lagu daro. laakiinse odaygii markii waa ogaaday ay sameeyeen oo ugu bilaabay inuu labadoodiiba u canaanto. basteejadii xigta ayaa lagu hagtay, inantu waxay rabtay inay cararto. sidoo kale tareenkani intuusan dhaqaaqina Ajay ayaa u soo ordaya si uu tareenka u raaco. isla markii aragtay wiilkan aadka u quruxda badan, iyana waxay go'aansatay inay tareenka dib ugu soo laabato oo ay bilowday inay u sheegto hooyadeed. markiiba waxay u yimaadeen qolkii uu Ajay joogay, waxayna bilowday inay u cilaamiso inay qorshe u degaan, iyadoo weliba u sheegatay jaceylkeeda. labada gabdhood ee walaalaha iyo sidoo kale hooyadu hal fikir ayay ka sinaayeen, waxayna ahaayeen qoys mucjiso ah. hooyadii waxay sheegtay, aniga 14 jir ayaa la igu guursaday, ninkaana ilaa hadeer anigu ma jecli. labada gabdhood ee waaweynna iyagoo yaryar ayaa lagu daray. hadda gabadhaana waxa uu raba inuu nin kale ku qasbo. Ajayna sidii ayuu u ogolaaday oo uu odayga hor yimid. odaygiina waxa uu sheegay, kaali sheeko ayaan kaaga sheekeynaya ee halkani soo fariiso. gabadha weyn markaa college-gay isla maalintii xigtay nin ayay ii keentay, midda xigtana nin kale ayay ii keentay. hooyadii ayaana ku waafaqday. ninka ii keenin ayaa mid ka mid ah dahab soo xaday. dahabkii ayaana gurigeygii la keenay, ciidamada ayaana soo helay. 3 bilood ayaana la ciqaabiyey. sababtaas ayaana keentay in labadaydii furood ay isku dhagaan. Ajay markuu ogaaday gabdhahani sida ay u waalan yihiin, waxa uu bilaabay inuu odayga la safto oo uu khuraafaadkoodii dhegta kale ka saaray. sidaasi markay dhacday, dhagar dumar waa dhagar jin, waxay bilaabeen inay degaan qorshe kale. Ajay saaxiibkiisii ayay u yimaadeen oo ay bilaabeen inay sasabtaan, waxayna ka dhaadhicinayeen inuu la badbaadiyo gabadhan yar inaan lagu darin nin ka weyn. odaygana waa uu u qalbi jaleecay. qorshuhuna waxa uu noqday in markaasi Ajay lagu guuriyo gabadhani. habeenkii ayaa la gaaray, waxauna markaasi Ajay ka dalbaday inuu isaga iska seexdo oo uu waardiye ka haynayo. sidii ayaa dhacday. sidii markii saqda la gaaray ayuuna bilaabay inuu qolka u faarujiyo. gabadhii ayaana qolka soo gashay, waxayna bilowday inay iska dhigto mid la rafifay oo ay bilowday inay qiiliso. aabaheed ayaana meesha yimid. gabadhii waxay sheegtay, ninkani waxa uu rabay inuu aniga isku day inuu xoogo. ninkan keliya ayaan i guursanay maadaama uu falkaani ku dhaqaaqay. odaygan aad ayuu uga murugooday, waa uuna og yahay in gabdhihiisa khashkaani ay wadaan, laakiinse caddeynta keliya ee halkani lagu sixi karo waa Ajay saaxiibkiisa. Ajay saaxiibkiisa ayaa caddeeyay oo u sheegay hadda ninkan waa inuu gabadha u guursadaa. Ajayna markii waxa uu bilaabay inuu ka sheekeeyo waqti uu dhaawacyo soo gaaray, uuna ahaa qofka keliya ee soo badbaadiyay. markii waxaasoo dhan la soo xasuusiyeyna, Ajay waxa uu bilaabay inuu runta uu sheego. sidii ayaana dhacday. sidii ayuunu qorshahaasi kaga dhicisoobay. jaanka kale ee tareenka waxaa saaran qolyo burcada oo markii habeenkii la gaaro dadka ka aruursada dahabyada. isla markii iyagii wax walba ayay u diyaariyeen oo ay u sheegeen in dahabyadoodii oo dhammi ay siinayaan, laakiinse u diyaariyaan hal qorshe in ninkaasi loo cagajugleeyo si aniga ii guursado. sidii ayaa dhacday. ninkii oo qolyo burcada wata ayaa wuxuu hor yimaaday Ajay, waxauna ugu cagajuglay in gabadhan guurkeedii haddii uusan aqbalin halkani lagu dili doono, khaasatan bosteejada xigta. bosteejada xigta markii la gaaray, iyagii ayaa dhammaantoodii la rifay. Ajayna waxa uu sheegay bosteejada labaad haddii aad ka laaban weyda in sidaani si ka daran la idiin warayo. sidii ayaana dhacday. dhammaantoodiina sidii ayaa loo waray. markaasi way ogolaaday in gabadhani aan la guureen, ilaa markii dambe ay soo gaareen deegaanka ee Professorad Baathiya ku nooshahay, waana magaalada Kanuur ee ka tirsan Andhra Pradesh. halkaasi markii gurigoodu yimaadeen, aad ayuu guriga isugu qasnaa, kamana muuqan meeluu aroos ka dhacay. odaygii dariskeeda sidoo kale waxba ma sheegin. isla markii
waxay tageen jaamacadda ay wax ka bari jirtay markii ka soo waayeen Professorad Baathiya ayaan aragnaa oo qarsanaysa wejiga xitaa ninkay dalabaadka yar ka gadan jirtay waa iska qarinaysa iyadoo ogaanayno inay dhib aad u culus ay ku jirto gabdhaheedii ayay meel maqsin ah ku qarisay waxayna u soo gadaa xoogaa cunto oo yara waxayna rabaan inay iskaga baxsadaan Kunuur isla markiiba dhawaaq ayay maqleen maadaama la soo dabagalay qolyihii burcadda ayaana ku soo raajiray sharqan yar ayayna burcadda ka maqleen markii ay dhaqaaqiyeen waxayna garowshadeen inay ku jiraan meeshan maqsinka waran ayuu u isticmaalayay waranka waxa uu sidoo kale gacanta ka galay Professorad Baathiya si markaas iyaga aan loo ogaan waxay bilowday inay shimbir ay mariso shimbirtii oo dhaawac ah ayaana dibadda lagu arkay sida ayayna maalinkaasi ku badbaadeen wasiirka oo cibaadaysanaya isla markiiba waxa u yimid gacanyarihiisa waxa uuna u sheegay inuu hadda Professoradaasi soo waayay wasiirkii markuu gacanyarihiisa ku yari waa soo waayay ayuu bilaabay inuu u daaro muuqaal taariikhiya khaasatan waxa uu u daaray muuqaal nin hore ugu soo dagaalami jiray xornimada India oo lagu magacaabo Alluri Sitaram Raju ninkaasi waxa uu hor yimid 100 askari oo ka tirsan ciidamada Britishka khaasatan waqtigii gumeysiga isagu waxa uu ahaa ninka aan u dagaalana waxa uu u sheegay ninkani indhiisa geesinimo ayaa ka muuqata sidaas la mid ah waa inay si degdeg ah iyagu keentaa Professorada gacanyarahana sida ayuu qorshe adag ku qaatay oo uu ku soo qabto halka labadii askariin ay CC kaamirada ka waayeen waxayna toos u tageen saldhigga bilayska markii magaceedii loo sheegay waxaa la sheegay inay si degdeg ah uga baxaan saldhigga isla markiiba askari ayaa u sheegay qof ayaa hadda dacwo ka qoray laakiinse qofkaasi waa uu tagay waa ayna arki waayeen kadibna ninka shaalaha ayay weydiiyeen inay macalmada garanaya cunug yar ayaa sheegay inuu garanayo balse waayadii dambe uusan arkeen Professorad Baathiya ayaan aragnaa caruurteedii meel ku qarisay nin ayayna u timid kaasoo u sheegay in hadda baabuurka uu diyaar yahay waxayna rabtaa inay hadda ay aado Hyderabad isla markiiba ninkii burcadka ayaa arkay gabdhaha ay dhashay Professorad Baathiya markii ayay bilaabeen inay meesha ku afdoobtaan cunugii yara ayaa arkay oo bilaabay inuu ajay u qeylo dhaamiyo saddexdii gabdhood ee ay Professoradu dhashay ayaa la keenay meesha ugu caansan ee Kunuur waxaana loo qeylo dhaamiyay Professorad inay meesha timaado hooyadaasi ayaana la bilaabay in si xun madaxa wax looga garaaco ninkii burcadka ayaa ku amray in faaska loo soo tuuro waxauna bilaabay inuu faaska ku tuuro Professorad Baathiya laakiinse markiiba ajay ayaa yimid oo ka qabtay meesha la rabo in hooyadani lagu fadeexaysto waa meesha ugu caansan ee deegaanka Kunuur waana taalada lagu magacaabo Kunda Ready isla markii waxa uu qoysku u sheegay in wiilkoodii ajay uu hadda howlgal muhiim ah ku maqan yahay sababta la ajligeed uusan imaanin laakiinse hadda wuxuu ka dambeeyay aniga ayaa arooska qaabeynaya aniga ayaana sugaya amarkiina sidaas markuu yiri in burcada ayaa soo dhexgalay waxa uu u sheegay inuu hadal ka soo dhexgalay ninka ayaa joojin waayay oo uu bilaabay inuu si xun u garaaco ilaa markii dambe ay neefti ku xirmatay waxa uu bilaabay inuu biyo u soo qaado ka hor inta uusan dhimaan arrinkaas oo dhami waxay mucjiso ku ahayd qof kasta oo joogay taaladani qoyska ayuu bilaabay inuu soo kaxeeyo oo uu meel fariisay si uu biyo u siiyo waxa uu bilaabay inuu si adag oo la dagaalamo isagoo waliba u sharxay in wax walba uu isaga qaban doono iyo sidoo kale xaaladdu ku sugan yahay wiilkooda dhammaan askartii markuu wada laayeen waxa uu ku amray inuu meeshan ka tago hadda qoyskan oo isaga damaanad qaaday ninkii tuuga burcadka oo cabsanaya ayaa dib ugu soo laabtay wasiirka waxaan u daaray muuqaalka ninkii geesinimo dirarka u sheegay maanta waxaa la kulmay qof noocaas oo kale ah waxauna ku takhasusay sida loo jabiyo lafaha bini aadamka isagoo u sheegay anigu ma rabo inaan hadda gurigaygii aado halkani ayaan joogayaa habeennimadii markii la gaarayna waxa uu bilaabay inuu qoyska wareysto hooyadii waxay u sheegtay ninka odayga ee dariska iyo wiilkiisii ayaa la soo dilay markii aragtay waxay aragtay in gacantii uu ka guurnaa ninkaasi laga dilay markii way xasuustay in ninkan gacantan uu ka guurnaa uusan gacantani iska dili karin isla markiiba dhakhtarkii ayay u tagtay oo ay cadeynta u keentay in ninkan uu guran yahay sidee bidixda isku dili karaa isna waxa uu sheegay inay tagto saldhigga ciidanka bilayska si ay dacwo u qarato saldhigga markay timidna waxa uu sheegay in arrinkan wasiir ka dambeeyay si toos ahna ugu tagto wasiirka marka uu timidna wasiirka waxa uu sheegay intay goorgoorta in dacwadeedii ay dib ula laabato laakiinse iyadu waa ay diiday isna waxa uu sheegay in qof kasta uu ka hor yimaado uu isaga u dilo maamadaas waxay isku dayday inay cadaalad u keento dariskeeda
maalintii xigtay markay jaamacadda timaaday waxaa lagu eedeeyey in ardayda ay imtixaanka u qashto sidii ayaana dhacday sidii ayaana jaamacadda looga eriyey iyadii maxkamad ayaa la saaray taliska ciidamada biliiska ayay timid iyadoo rabta in dacwadeedii ay nuuqsato markii warqadda dacwadda loo soo celiyeyna wasiirka ayay dib ugu soo laabatay wasiirkiina waxa uu macalinka weydiiyey ardayga khaldamo maxaa lagu ciqaabaa macalinka ayaana sheegay in qoraxda la istaajiyo sidii ayayna dibadda u joogtay ilaa intuu habeenka ka dhacayay habeenkii dhan markay dibadda joogteen saqdii dhexe ayuu wasiirka u yimid waxayna u sheegtay in hadda dacwadeedii ay la laabatay laakiinse markaas waxa uu ku yiri hadal caana waxauna ku yiri adiga qof dumar ah ayaa tahay gurigaagan rag ayaa loo baahan yahay maadaama ay hadda rag la'aan ku hayso hadalkaas oo meel ka dhac ku waxauna ku amray in gabadhaani hadda la dilo maadaama xadkeedii soo gudubtay markii ogaatay inaysan halkani ku badbaadin ayay bilowday inay laambada ay damiso sidiina meesha uga soo baxsatay sidaas markii loo sheegay waxa uu ku yiri hadda caruurtaadii casho siiso ma jiri doonto cid kale oo kugu soo xadgudbi doonta habeenkiina isaga ayaa waardiye ka hayay guriga sidii uu horay waardiye uga hayay xerada militariga maalintiina waxa uu bilaabay in gaadiidka reerka uu soo kaxaysto oo ay yimaadeen taliska markii hore ninkaas waa uu diiday in hadda dacwad laga qoro wasiirka markii sidaasi dhacday isla markii marwadi ayaa amartay in ninkan cashar la tusiyo sidii ayaana isaga loo garaacay waa uuna aqbalay in hadda wasiirka dacwad laga qoro TV-yada ayaana wareystay waxa ku dhacay halka isna uu sheegay in dhulgariir uu gurigiisii ku dhacay sidaas markii dhacday abukaati ayaa sidoo kale guriga loogu yimid isna waxaa la bilaabay in xafiiskiisa si xun loogu garaaco waxa uuna aqbalay in hadeer sidoo kale uu difaaco kiiska macaalimad Bathiya sidaas markii dhacdayna waxa uu si toos u yimid gurigii uu deganaa wasiirka laakiinse markaas wasiirka guriga ma joogin shir ayuu ku maqnaa waxaana loo sheegay in macaalimad Bathiya ay joogto gurigaaga isagoo xanaaqsan ayuu dib gurigii ugu soo laabtay waxa uuna ku yiri aniga waxaan rabaa inaan iyada dilo maxaa weeye qofkan aad ii soo kaxaysatay ma wiilkaagii ku maqnaa jiida hore ee dagaalka ayaa ninkani halka uu sheegay halkani waa gurigayga ma ogtahay waxa ciidan oo halkani jooga isla markiiba Bathiya ayaa hadalkii qabsatay oo ku tiri dhammaan ciidankaagi meesha jooga halkani askari uma barbartami karo wasiirka oo yaaban ayaa waxaa la bilaabay in la tusiyo awoodiisa dadkoo dhami ayaana la dhexgeliyey minid gudaha ayuuna bilaabay in dhammaantoodii uu si xun u wada dilo hadda wasiirku waxa uu xaqiiqsaday in ninkan uusan ahayn nin caadiya si degan ayuuna bilaabay inuu hadalkoodii u dhageysto markaas waxa uu ku yeeray annaga adinka ayaan ku difaacnaa idinkana bulshada ayaa wax gaarsiinaysaan waxauna ka dalbaday muddo 48 saacadood in haweeneydan xaqeedii dib loogu soo celiyo uuna raali geliyo adigana waa inaad isgeysaa saldhigga barfaas ayaa ku yeeray horta mukulataa ninkan in la bedeli karo isna waxa uu sheegay waxa muhiim in ninkan la bedelo waayo boqolaal qof ayaa isaga ku taxalluqa haddii isaga la bedelana waxaa la bedelayaa bulsho badan wada hadalkaasi kadib macalin Bathiya intaysan meesha ka bixin waxay ku tiri hadal uu isaga hore ugu yiri oo ahaa waxaan u malaynayaa hadir adiga iyo gurigaagaba inaad u baahan tihiin nin rag ah kulankaasi kadib waxay toos ugu dhaqaaqeen wiilkii guursan lahaa gabadha curadda ay dhashay macaalimad Bathiya aji ayaan u sheegay xaaladaha adag oo ay waajaheen adigana in laga fiicna inaad arooskani ka boodo hooyadii ayaan u sheegtay waxaan rabnay inaan ku wargelin xaaladda anagana haysta hadda raali ayaa u tahay inaan ugu darsatid iyo in kale macaalimad Bathiyana waxay dib ugu soo laabatay jaamacadda ay ka shaqeynaysay sidii ayayna bilowday inay nolosheedii u sii wadato aji ayaan ahaa ninka mar walba garab taagnaa ilaa maalin ee wax ka weydiisay arrimaha hooyadii halka isna uu sheegay waalidiintiisii inay dhinteen isagoo aad u yar kuna soo karay xarunta agoonta qoyskii kale ayaa ogolaaday in gabadhani la guursado maalmo farxadeed ayaana reerka u bilaabmay waxaana la diyaarinayay arooska aji ayaana qaaday wilaayada walaashiisa maalintii xigtay markii la gaaray generaalka ayaa soo wacay oo hooyadii u sheegay in xaaladda wiilkeedii uu ku jiro hadda cisbitaal uuna fiicnaan rabo halkayna uu sheegtay booska wiilkayga aji ayaa ii buuxshay kulankaasi farxadeed kadib aji ayaan ahaa habeenkii ninka qoyskani ilaalinaya kadib labadoodii maalintii xigtay waxay bilaabeen inay u tagaan nin kale oo sargaal ah ninkaasi si uu markaasi ay dacwad ugu qaadaan wasiirka ninkani ayaa wax yar laynoo bidhaaminaya askarigani sumcadda leh waa ninka la rabay in lagu daro gabadhii dhibka badneed ee Rashmiika waxaana loo sheegay in gabadhani aad u fudfududahay laakiinse isaga ayaa u sheegay inuu isaga
isaga uu tababari doono gacan yaran u noqonaysa. Aji ayaana sugay sarkaalkaasi si uu kiiskani garab ugu siiyo, laakiinse markuu gabadha arkay waxa uu saaxiibkiisa ku sheegay mar kale miyaa rabta inaad i khiyaanto. taliya branch coach ayaa ku yiri gabadhan ha ka cabsanina, mar dhow aniga ayaa rab inaan guursado laakiinse weli ima jeclaan. isla markii waa uu ku farxay oo uu soo jeestay inanta ayaa bilowday inay markiiba isku duubto. laakiinse taliya ayaa arrinkaas ka carooday. dhammaantoodii waxay yimaadeen qolka baarista, waxaana la rabaa in baaris lagu sameeyo dad horay dacwad uga gudbiyey wasiirka. dadkaana 3 qof ayaa dadkaasi ugu muhiimsanaa, waxaana la jabsaday mid ka mida taleefanadooda. 3daani qof waa 3 qof oo kaliya ee caddeynta laga heli karo, waxayna bilaabeen inay tagaan guryahooda. qoyska ugu horeeya ee gabadha waxay u sheegeen in gabadhoodii jacayl dartoodii isku dishay, ninna ay la baxsatay. qofkii labaadna waa ninka u shaqeeya dowladda, ninkaas ayaa ah ninka ugu muhiimsan, xaaskiisii ayaana been sheegtay. Aji ayaana bilaabay inuu guriga uu si fiican u soo kormeero. ninka kale ilaa hadda raadkuma aysan helin. markii qolkoodii dib ugu soo laabteen ayay bilaabeen inay isweydiiyaan qof kasta waxa uu soo arkay. sarkaalkani waxba ma soo arkinba. Aji ayaa sheegay gabadhaasi aabbaha iyo hooyada guriga joogay ma aysan dhalin, iyadu waxay ku soo kortay xarunta agoonta. waxaa sidoo kale oo muhiima, gabadhaasi waxaa loo sameeyey warqad waarid been abuur ah oo uu ka dambeeyey wasiirka si kiiskiisa aan loo dabagelin. midda kale ninka dowladda u shaqeeya isaga iyo xaaskiisu isma aysan nibcayn, way isjeclaayeen ilaa waxa ay tageen 8 wadan. laakiinse wasiirka ayaa ku kalifaya inay been sheegto, waayo haddii qof isku day inuu kiiskani dabagalo wasiirka sirtiisi oo dhammi ayaa fashilmaysa. waxayna markaasi ogaadeen in 3daan qof uu mid nool yahay, waxaana la garoonshaday inuu nool yahay ninka u shaqeeya dowladda, waayo meydka ninkaasi waxa uu lahaa 6 farood halka ninka caadiga ah uu lahaa 5 farood. wasiirka ayaana geeri been abuur ah sameeyey. isla markii wasiirka ayuu wacay. wasiirka ayaa u sheegay aniga ayaa kuu sheegaya ninkaasi meesha uu joogo, waxa uu joogaa keymaha Dharmaala, aad ayayna ugu adagta in meeshaasi ka soo badbaado. isla markiiba baabuur ayuu qaatay. maama Bathiya ayaa guriga hor timid, waxayna sheegtay inay halkani joogayso ilaa inta uu wiilkeedii ka soo wacayo. wasiirkiina sidoo kale meesha ayuu fariistay ilaa markii dambe Ajay uu soo galay keymahani. sidoo kale ninkii loo baahnaana meeshan ayuu ku xiran yahay. markii horena Ajay si fiican ayaa loo jilciyey, ilaa markii dambe uu ogaaday dadkani cidda ugu muhiimsan inuu yahay odaygani, iyo in marka hore odayga la iska qabto. si degdeg ah ayuu bilaabay inuu odayga u qabto. isla markiiba waxa uu wacay hooyadii, waxauna u sheegay caddeyntii ugu muhiimsaneed oo aynu wasiirka ku dacweyn lahayn inaynu hadda gacanta ku dhignay. hadda wasiirka godkiisa biyo ugu soo galay, waxaana la bilaabay in ninkaasi la wareysto. ninkani waxaa magaciisa la yiraahdaa Rama Krishna, waxa uu ka shaqeynaya xafiiska ugu sareeya ee Kanuur. dadka dhibaataysan ee beeraleyda ah ayaana ninkan u iman jiray. hay'adaha deeq-bixinta ayaa dadkani beeraleyda lacag u soo diri jiray, laakiinse 6 bilood ugu dambeysay ma aysan arkin wax lacag ah. Rafi oo bangi ka shaqeeya ayuu arrimahani la kaashaday. akoomo iyo sidoo kale magacyo been abuur ayaa la sameeyey. marka la tixraacayna waxaa la ogaaday in wasiirka weyn uu lacagtaasoo dhammi ku shuban jiray bangigiisa. waxaana soo caddaysay gabadhii la dilay oo ka tirsaneed xarunta agoonta. gabadhaas ayaa xogta oo dhammi labadoodii u keentay. bangiga laaluush ayaa la siiyey, dowladda sarena ma aysan ogin, sidaas ayuuna lacagta wasiirka ku daldalan jiray. markii xogtaasi heleen wasiirka ayaa ka warheelay oo bilaabay inuu 3doodii uu soo weeraro. 2 qof ayaa meesha lagu dilay, wiilkii gacanta guriga ahaa iyo sidoo kale gabadha agoonta ah. anigana duurka ayaa la igeeyey. waxauna sidoo kale soo bandhigay caddeynta ugu muhiimsan ee wasiirka lagu maxkamadayn karo. maalinkii dambe golaha xildhibaanada iyo golaha wasiirada oo dhammi ayaa shirayay. isla markiiba Aji ayaa bilaabay inuu soo galo, waxauna bilaabay inuu bam uu farsameeyo. markii hore oo dhammi ma aysan dhegaysanin, ilaa markii dambe uu sheegay haddii qof uu hadlo bamkani 3 daqiiqo ayaa ku xiran. halkaas waxa uu ku soo bandhigay caddeyn walba uu hayay iyo in sidoo kale dhammaantiin aad dhacdaan dadka. waxauna soo bandhigay in wasiir kasta oo caado qaata yahay, haba ugu weynaado wasiirka ugu sareeya iyo sidoo kale wasiirka ugu muhiimsan. caddeyntaasoo dhammi iyo markii isagii la fadhiistay dhammaan wasiiradii kale waxay go'aansadeen inay ninkani uga baxaan. xisbiga uu wasiirna Lagandara ka tirsana ayaa laga saaray. dhinaca kale qoyskii arooska ayay dhiganayeen, iyagoo arooska dhiganaya generaalkii ayaa soo wacay. waxauna u sheegay in hadeer wiilkii imaamadaasi dhashay ee Ajay uu dhintay. habeenkii qoys keligood ayaa isku soo haray. hooyadiina waxay garooshatay siduu Ajay isku bedelay oo ay garooshatay in wiilkeedii uu dhintay. way xasuusatay markii ay yaraayeen in caruurteedii aad ula jecleed inay ciidanka ay noqdaan.
laakiinse markan aad ugu murugaysantahay in laba wiil ay ku weeday xeradaasi. Aji ayaa u qalbi qaboojiyay. Maalintii xigtay meydka ayaa sidoo kale la keenay guriga, waxaana loo diyaariyay aas qaran, waxaana lagu wareejiyay dharka ciidanka iyo sidoo kale bilada uu wiilkeedii soo hoyay. hadeer hawsha waa la soo dhameeyay, reerku si nabad ayay ku nool yihiin, maamaduna waa ay shaqaysaa. laakiinse qofka ugu muhiimsan waxaa weeye wasiirkana sidii hore ayuu u cabsaday maadaama uu ogaaday in ninkan uusan ahayn nin caadiya iyo in sidoo kale xogta ugu muhiimsan uu hayo. laakiinse waxaa loo sheegay in ninkaas uu dib ugu laabanayo xeradiisii militariga. waxa uu maleeyay inuu qorshe damacsan yahay oo ay bilaabeen inay uga soo ordaan xarunta tareenka. sidoo kale Rashmika ayaa meesha timid iyadoo rabtay inay ninkani jaceylka u bandhigato. labadoodii waa isku dagaaleen, laakiinse gabadha ayaa markii hore u bandhigatay inay jeceshahay. sidoo kale wasiirka ayaa bilaabay inuu maamad uu raali geliyo isagoo raaligelin ka dalbanaya. waxa uuna ku yiri aniga ii sheeg waxaan sameeyo. waxa uuna siiyay warqad inuu hadir uu ku soo biiro xarunta ciidanka militariga, haddii kale in bulshada aan kugu fadeexeen doono. arrinkaasna waa sida kaliya oo aad khaladkaaga ku sixi karteed. 3 bilood kadib ayaan aragnaa wasiir Nalagandar oo hadda ka tirsan ciidamada militariga. waxa uu noqday askari dhammaystiran oo markaas aad u jecel dalkiisa. waa ku mahadsantahay daawashadaada. insha Allah waa inuu muuqaalka ka soo gelaa idinkii mahadsanideen.